بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهنتين بداود يلقسو دوادا برامج ورادك جنة الكحولك ورارك قضوبدا أن يدنكوكسو قدبندونا حقايبك نغنيا فيلا صوماليا وبينيسا ورارك الشيقا يهين لعق الله يستو أسكرتي دان يرد أوبدنا يتوبرك أوما قوادن كإيراتريا يا إمان شيودا دالك يدوان لفيلا يو حقا يساليقان دونا محايسا فيلا صوماليا وقرشيسي xoga kala doona arintaas ku saabsan ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya maxaan kala soconaa xaaladda caafimaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu dhawaan tijaab ahaan maray madhaba in uu ka guuleysto caabuqa covid-19 iyo shaqada xafiiska qaranka Soomaaliya uu dhawaan bilaabi doono xoga arintaas ku gadaaman ayaad ku daawan doontaan qodobada kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya محمد حسين روبلو سجستيس عقبها ولدول مرفاد ياسيني بروفيسور محمد حاجي انجليز حل قبل لعي شلي وحلك وهي كورجي حمزة عبد برا ودوان مدحوين حسن الشيخ محمود حلك اسمه مقعابي داود يا القضبة داسي قضبك لها بوحي نقول سوكر دا ايان ودين ففاهيد دونايات هدي اي مركي كوو رئيسي كوتاي وحانكا عوتسان انا سبسكراب لاقي شر انتو بعد ندو داكتان كوسو دوادا برامج ورادكي وداميستر مركا نانكو بلاونو فيلا صوماليا ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in aysan jirin lacag loo haysto askartii dhalinyarada u badnaa tababarka ugu maqan wadanka Eritrea. Afayeenka madaxtooyada qaranka Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo ka qayb galay barnaamij dood wadaaga isla markaana su'aalo tiro badan ay ku weydiinayeen bulshadii ka qayb gashay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo xaaladda siyaasadeed iyo mid amni ee dalka Soomaaliya ku saabsan. afayeenka ayaa marka ugu horeysa waxa uu shaaca ka qaaday in ay jiraan waalidiin kala duwan oo xiriir kala duwan filan Soomaaliya la sameeyay isla markaana uu sheegay in uu qalbiga u qaboojinayo in dhalinyarada tababarka lagu qaado dalka Eritrea guud ahaan inta tababarka dhameysatay xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay. waxa uu ka jawaabayay su'aal mar la weydiiyay oo ku saabsaneed in askartaasi loo haysto in dalka dib ugu soo noqdaan lacago $50 milyan Mareykanka kor u dhaafaya. waxa uu sheegay in habeeraate arrimahaasi aysan jirin waxa uu tusaalooyin kala duwan u soo qaatay in dalka Soomaaliya dalal kala duwan ay tababareen ciidamada ay hadda haystaan kuwaas oo sheegay inaysan hore u dhicin haddana aysan jirin wararka sheegaya oo la isla dhaxmaraya inaysan ahayn wax jira. waxa uu afayeenku sheegay in dhawaan ay xukuumadda Soomaaliya qorsheynayso sida dalka dib loogu soo celin lahaa 5,000 ee askarta ah ee dalka Eritrea ku sugan isla markaana tababarka ugu maqan. waxa uu sheegay in feelka dukumentiga ah ee 5,000 askarta xil wareejinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku jirtay isla markaana dukumentiyadaas uu gacanta ku hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu sheegay in askarta Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan baahi weyn ay u qabto dawladda Soomaaliya dalkana dib loogu soo celin doono. waxa uu ballan qaaday cid kasta oo u baahan oo waalidiinta ay in la hashiyo askartaas dhalinyarada u badan ee ka maqan in dalka dib loogu soo celin doono wax qaranka uu leeyahay ay yihiin sida uu shaaca ka qaaday afayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar. afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed lala wadaagi doono xogaha kala duwan ee villa Soomaaliya ama qaranka ay u hayaan taas oo sheegay in uusan xafiiskiisa noqon doonin mid ka gambada warbaahinta iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. xogta qaranka Soomaaliyeed ee villa Soomaaliya taala mar walba diyaar u yihiin inay la wadaagaan. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu si jees ahi uu kabaha ula dul maray Maxamed Xaaji Ingiriis iyo sidoo kale Fahad Yaasin. Maxamed Xuseen Roble oo shalay gabaldhici madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha munaasabad kooban oo xil wareejin isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan ayaa waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanayso halkaas ka jeeday. waxa uu soo hadal qaaday xaaladaha kala duwan ee dalka iyo sida ay ku soo shaqeeyeen isaga oo hadalkiisa ku jirtay dhibaatooyinka kala duwan oo dalka Soomaaliya soo maray hab ugu badnaatay xilligii doorashada. uu sheegay dhibaatooyin kala duwan uu dhinacyo kala duwan uu kala kulmayay Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay kala bartaan aqoon-yahankooda iyo kan wadaadka ah ee fariimaha kala duwan la wadaagayo. waxa uuna hadalkiisa inta badan ayaa waxa ay dadka wax falanqeeya ay ku tilmaameen in ay u badneed in uu ku dhaga hadlayo mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda Soomaaliya hore xilal uga soo qabtay iyo sidoo kale Maxamed Xaaji Ingiriis oo dhawaan baraha bulshada qoraalo kala duwan
uu ku eedeynayay aqoonyahanku waxa uu sheegay in uu yahay mid looga baahan yahay bulshada inay ku dashdaan ha yeeshee waxa uu tilmaamay in kuwa aqoonyahana ay aflagaado iyo cay madaxda qaranka ay la soo taagan yihiin taasina aan looga baahnayn sida uu ka sheegay xil wareejinta Maxamed Xuseen Roble. sidoo kale waxa uu sheegay in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir mar uu soo hadal qaadayay isla markaana sheegay inuu yahay mid ka careysan kursiga uu waayay dartiis hase ahaatee looga baahan yahay inuu adkaysto oo mar kale uu soo tartamo. dhaga hadalka ayaana waxa uu muuqday mid ku socda Fahad Yaasiin iyo dhammaan tiimkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Xuseen Roble oo sanad iyo barkii tagay la soo dhaafay xafiiska xukuumadda looga arrimiyo uu joogay isla markaana dalka Soomaaliya la sheego inuu ka badbaadiyay dagaalo sokeeye kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abriil 12, 2021 uu shaaca ka qaaday in uu muddo 2 sano ah loo kordhiyay baarlamaanka mar ay fadhiisteen. ha yeeshee taasi ayaa noqotay markii ciidamad kala duwan oo dowladda federaalka ka tirsan oo military u badnaa ay magaalada Muqdisho soo galeen dagaalo kooban oo dhacay kadibna xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ay ku guuleystay in dib xirmadaas xiyahooda iyo goobaha ay ka imaadeen loogu celiyay. kadibna dalka Soomaaliya doorashadiisa Maxamed Xuseen Roble gacanta loo geliyay sidaasna ay ku dhacday doorasho kala duwan oo qayladooda ugu badneed ay ka dhacday balse waxa ahayd doorasho dalka Soomaaliya ka badbaadisay in marxalad dagaal mar kale uu lagu halagalo. waxaan kala soconnaa xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dhawaan tijaabo ahaan uu maray. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay waxa ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee ka qaaday baaritaan la xiriira caabuqa COVID-19 oo hore u shaaciyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu haleelay kadib safar uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale markii uu dalka ku soo noqonayay baaritaan 2 mar lagu sameeyay laga helay caabuqa COVID-19. hase ahaatee mar uu shaaca ka qaadayay afayeenkiisu uu sheegay madaxweynuhu caafimaad qabo. caafimaadka iyo tijaabada uu shalay maray ayaa waxaa sidoo kale la soo warinayaa in madaxweynaha uu bad qabyo lana rajeynayo in toddobaadka soo socda bilowgiisa uu si toos ah uu xafiiska qaranka iyo shaqooyinkii horyaalay oo u gudagali doono maadaama toddobaad iyo maalmo uu shaqada qaranka habsaan uu ka ahaa isla markaana karantiilay qolka uu ka tagay fil Soomaaliya ayaa hadda lagu soo waramayaa in xaaladiisa caafimaad ay hagaagsan tahay. sidoo kale afayeenka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in madaxweynaha baaritaanka la marsiiyay guud ahaantiisba lagu guuleystay. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowladdiisa waxa ay sameynaysaa furfurnaansho bulshada oo xogaha kala duwan ee qaranka iyo mid shakhsiyadeed lala wadaagayo iyadoo dowladda tan ka horeysana lagu dhaliili jiray in bulshada Soomaaliyeed xogta qaranka iyo guud ahaan xaaladda madaxda qaranka aanan habayraatay la wadaagi jirin. guud ahaan barnaamij wareedka janalka xulka wararka aad kala socoteen daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa. waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamij wareedkeena. waxaan mar kale idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay janalkan inaad like share intuba aad nala wadaagtaan.